السلام عليكم كسو دو جنرال كهود تاجر هدي aad nagu cusubtahay fadlan subscribe garee hadii aad nagu cusbeen asxaabta soo dhawaada maanta barnaamijka waxa ila daadihinayso Safiya Hormar yes waxaan kala idinheynaa barnaamij aad u cajaa'ib ah maanta waxaan interview gareenaynaa mid kamid ah youtuberada waaweyn ee aan aad u taageerno waa wiil horumar fiican ka gaaray community aad u balaaran ka dhisay youtube-ka laakiin u sii dheer tahay inuu yahay filmmaker actor maasha allah ila soo dhaweey qofkan waxa waaye walaalkeen Cusmaan Hoosow soo dhawo walaal Cusmaan Hoosow assalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وأنا دوهاي وأنا كمان سنتين أنت برنامج كاد يقوم مرتقادين وديقوا عسونتين وأنا دين سلامة يا دينك يا أصحابتي دينكو حرم بقى وكا قادناي ما سنتا adigana wax yar inooga sheegi kartaa waa yaa waay Cusmaan Hoosow وحير معناه اوكي معناه wax yar kooban manooga sheegi bal dad badan way ku yaqaaniin horta youtuber ama Soomaalida bulshada marka laakiin wax ma jiraan oo laga aqoon macnaha ama lagu ogeyn ama jeclaan leedna bulshada la qaybsatay oo introduction yar وصح horta mar walba waxa waaye qofkii wajigaaga arka ama si ku arko waxa laga yaabaa un adiga yani gudahaaga magacaaga sida ay tahay yani wax badan aan ka aqoonin un ba mar walba maaragtay ku soo hormarayo marka hadii ani hadaan sheeko leeyahay dad kale hor leh un ba isi baran doona marka waa si fiican inta hore kaftana iga ahayd marka aniga magacayga waa Cismaan Aadan Cali oo ku magac dheer Cismaan Hoosow ana neesta oo aabe Allah u naxariiste waxaan ahay waa aabe heesta laba caruur ku nool wadanka Belgium muxuu ahaay adiga dhanka ah youtuber dhanka ah film sameeye yani dhanna de qof oo isaga jira xaafadiisa ah marka waa kaasa kulay okay wow ha ma sha Allah okay horta youtube-ka horumar aad fiican ayaad ka gaartay community balaarna waad haysataa marka bal shaqada youtube-ka ma nooga sheekeyn kartaa inay tahay wax oo full time ku ah oo aad kaligeed ku mashquulsan tahay mase inay shaqada youtube-ka inay full time ay tahay maya shaqada youtube-ka full time ma ahan weligeedana ma noqon inta hadda la soo dhaafay de hadda kadib sida ay wax noqdaan ilaaha og laakiin ilaa hadda full time ma ahan marka maadaama dad badan oo la daawanayo ay rabaan inay youtube furtaan ama jecel yihiin inay youtuber noqdaan laga yaabay okay marka maxaa kugu dhaleynay waxa igu dhaliyay aniga inaan youtube horta furto in oo maaragtay aan helo meel aniga markaasi ii gaar ah oo waxyaaba aniga aan sameyn markaasi aan ku kaydiyo aniga markayga hore yani markii aan bilaabayay inaan film sameeyo aan noqdo ama waxyaabahaas markii aan bilaabayay mar walba horta yani inta badan inta aan had meeshan aan ku noolahay aan joogay waxa waaye waxaa la shaqeynayay dad kale oo dadka wadanka u dhashay ah haddii ay noqoto dhan theater iyo haddii ay noqoto dhan filmba marka yani waxaan isdhihi jiray marka de meel adiga kuu gaara waxyaabo kale oo gooniya marka adiga aad sameyso oo adiga aad dadka ugu soo bandhigi karto si aad u heli karto maaragtay markaasi ama dhiirigelin ama dadku saxo maaragtay de waxaaga dhaliilo oo wixii kula toosiya marka taas oo social media ahaan inuu ka qayb yahay oo sidoo kale xitaa facebookna aan isticmaali jiray youtube ka hor taasun buu ii ahaa ani macnaha inaan youtube aan furto oo maaragtay de markii aan furto kadibna dhiirigelin oo aan ka helay yani dhiirigelin aniga aan ugu baahnaa taas ma jirto waayo wuxuu ii ahaa de boorso oo kale aniga aan wax ku ridanayo ii ahaa markii dambena de marka hawshii aan sii balaariyo aan sii wadana de markaasina dhiirigelin sida ay ugu bilaabatay alxamdulilah ilaa hadan weli de dad oo na dhiirigelisho iyo dadna dhaliila iyo dad wax noo sheegay dadna la talsho inta bana way jiraan okay ma horta maasha Allah Hoosow waxaa tahay adiga qof oo aad role model u ah aadna u caawiyo youtuberada yaryar xitaa aniga sideeda aan kamid ahay feedbackyaal badan aad siisay aan arkaa dad badan kale asaas aad uplifting ugu sameynayso marka adiga shaqadan inaad sii wadid maxaa kugu motivate garay adiga waa la arkaa adiga dad kale motivate garay aniga wallahi سؤال عادي أدو في عن أنا waxa i motivate gareeya ayaa waxay tahay ma aragtay waxaan ku nafisaa aniga inta aan wax duubo wax inaan dadku soo gudbiyo taasaan macnaha ku nafisaa tusaale ahaan oo kale hadda marka anigoo ka imaaday shaqo oo kale oo waxyaabo kale soo qabanayay oo aan daalanahay haddii aniga aan wax duubayo mise aan wax edit gareynayo ma u arko hawl kale oo ii taalo xitaa inta badan uma arko oo waxaan u arkaa de wax oo aan ku nafisayaan u arkaa marka yani wax oo
wax oo igu dhex jiro oo iga buuxa waay marka in aniga dee saas ahaan aan sameeyo laakiin wax kaloo gooni aan dhihi karo way i motivate gareeyaan ma jirto marka laga reebo dhiirigelinta iyo dee jaceylka markaasi oo feedbacka dadka walaalaha kaaga imaanayo wixii adiga aad soo samaysay markay daawadaan kadib marka in yar ma noo sheegi kartaa faa'iidooyinka YouTube dad badan reer YouTube waxa waaye dadna waqtigu ka dhumiyaa dadna waxbay ka faa'iideyaan marka wax yar ma nooga taaban kartaa faa'iidooyinka YouTube iyo qofkii rab inuu bilaabo YouTube si fiican amaba waxyaalaha uu kusoo geli karo ee ugu fudud oo samayn karo ama sifooyinka ugu fiican sababaha fiican lagu soo biiro si fiican aad iyo aad waxaan u maleynayaa 2 sano ka hor meelahaas inay ahayd maraan ka sameeyey muuqaal oo aan ciwaankiisana ka dhigay sababta aad ugu baahan tahay inaad YouTube kusoo biirto marka adiga dhowr qodob aan maaragtay markaasi aan soo qaatay barnaamij aan diyaariyay maadaama uu ahaa laakiin hadda waxyaabo oo aan ka xasuustaa jiro tusaale ahaan oo kale marka qofka YouTube inuu kusoo biiro waxa ay ugu fiican tahay ama qofka kusoo biiraa faa'iido uu ka heli karo waxa waaye horta marka ugu horeyso qofka yacni waxyaabaha isaga uu sameynayay in uu kusii dhiirado tusaale ahaan qofka haddii uu sameysto channel oo uu isaga uu ugu sheekeynayo dadka markaasi uu ku barayo dadka si ay inay wax bartaan ama inay wax akhriyaan qaabka wax u akhrin karaan waxyaabahaasi mar walba adiga aad wax baarto aad wax soo raadiso adigana waxay kuu tahay aqoon kale oo waxaad soo faa'iideysaa laftirkaagaba waxay kuu tahay haddana markaasi in adiga dad adiga waxaasi wanaagaas adiga aad sameynaysa markaasi ay kugu jeclaadaan oo ay kugu taageeraan waxay kusii tahay markaasi inaad bulsho hesho oo hadhowdii maaragtay dee adiga dee qof waxaas uu sameynayo lagu ixtiraamayo oo magac ku yeelanayo markaasi inaad noqoto dee haddii ay kuu sii socoto waxaa ayadana maaragtay markaasi ka mid noqon karto in oo dhinac ahaan xitaa markaasi uu dhaqaale kaa soo gelsho taas oo moodo waxa ugu badan oo maaragtay markaasi loogu soo cararayo dadka in ay taas u maleeyaan marka kole waxyaabo badan ay jiro laakiin waa markaan ka fiirsho dhanka oo maaragtay dee oo hagaagsan markaan ka fiirsho laakiin dhinacyo kale oo waxaa jiro dee dadka intay soo galaan waxyaabo oo maaragtay dee ayaga laftirkoodana gadaal ay uga shaleynayaan bulshadana markaasi dhibi karo oo wax fiican ayagoona gudbinayan dadka markaasi inay hor yimaadaan ulajeedadooda ama muhiimadoodana markaasi ay tahay meeshan waa la yimaaday sidaas adigana ku tag ama lacagaa laga helaya layidhi saas sameey marka kolley saasaan u kala qaadaya laakiin way badan tahay faa'iida laga heli karo qof markuu YouTube noqdo yes okay horta shaqooyin badan ayaad qabataa mar YouTuber baa tahay mar kaleeto filmmaker baa tahay mar filimka waa wajishaa actorki baa tahay marka shaqooyinkan kala duwan keebaad ugu jeceshahay oo aad dareemaysaa alele ka markaasi sameynayo nafis aad baan dareemaa okay walaahi horta sida aad hadday horta ii weydiiseenba maadaama YouTube aniga aan shaqo ahaan horta aanan u arkin aniga YouTube waxaan u arkaa sida yacni wax oo qayb oo nolosha caadiga ka mid ah oo kale de sida fursad aan u helo ayaana maaragtay markaasi muuqaal aan usoo sameeyaa oo dadka igu xiran maaragtay markaasi walaalaha dee heerkooda markaasi aan inta kusoo gaaray dartooda aan idhaahde inaan qanciyo wixii markaasi aniga aan sameyn karo mise wixii ay iga sii codsadaan aan u sameeyaa oo yacni qayb oo nolosha caadiga ka mid ah oo kale ahaan markaasi ay tahay balse aniga waxaan jeclahay oo hoosta igaga jiro mar walba isocodsiinayo oo aniga aan rabana dee xilligan la joogo iyo tii lasoo dhaafay iyo tan mustaqbalkaba dee oo wax aan u dhigaan markaasi ay jirin waxa waaye yacni dhanka film sameynta marka taas kolley waxa waaye kolley waxaan u dhigi karo ma lahan ayada iyo YouTube-na waxa waaye dee in la kala qaado mooyaane si waxbay iska soo galayaan tusaale ahaan film markii aniga aan duubayo kaamiradan u baahanahay YouTube-na markii aan duubayo kaamiradan u baahanahay yacni waxyaabo badan oo iska soo galgalaan way jiraan wax isdiidaya ma ahan hase ahaatee laakiin haddii ay noqoto inaan mid u go oo kale hadda haddii la yidhaahdo يعني waxa waaye hadda lockdown-yada iyo waxyaabahan dul haayo oo kale ah hakadna gelisi ma ahan mar walba aniga waxa waaye dhanka film sameynta jiraan sida ogtahay boo aniga iyo hudaba waxa janaaladana ay yihiin horumar taajirnimo iyo self development sida naftaada ku horumarneed marka ereyga horumar markaad maqashid maxaa madaxa niyadaada kusoo dhaco okay waa su'aal aad iyo aad u fiican ereyga horumar markii aan maqlo waxaa niyadeyda kusoo dhaco macnaha meel aad shalay joogto inaad maanta joogin inta aad gadaal isku fiiriso oo aad isdhihi karto wow shalay markaa waxaa sameynaysa waxbaa kaa dhinaya waxbaa kaa qaldanaya markaad isdhehayso markaas horumar aad dhihi kartaa macnaha taas oo kale ay ugu soo dhacdo laakiin haddii waxa shalay aad samayso intaad dib aad u fiiriso ay noqon weyda kaliya in dadaalkii aad kusoo sameynaysa kaliya aad appreciate gareyn weydo laakiin ay noqoto wixii shalay aan sameynaya fiicnaa okay markaa waxaa sameynaya talo waan fiicnaa ka waran hadday noqoto
waxa waaye markaasi horumarka uu dhimeeya marka mar walba waxay ugu soo dhaco taas waa marka aan horumar ma gaarin okay su-aasha xigtaa marka waxay tahay sidaa sheegaysa horumar markasta inaad meesha shalay aad joogta aad kasii horumarsanaataa markasta aad tiigsataa milestonekii kugu horeeyey ama momentii kugu farxadda badnayd maxay ahayd maxaase nafsadaada si dhiirigelin aad ugu abaalmarisay okay waa su-aal fiican wallaahi waxyaabo badana horta aan alxamdulilah horta aan sameeyey waxyaaba badanaa sameeyey hadda markay noqoto dhanka YouTube markay noqoto inaan film soo saaro markay noqoto waxyaabaha oo nolosha asaasiga u ah oo kale yani dhanka guurka markay noqoto yani waxyaaba badan waan sameeyey inkastoo hadda aysan jirin waxaasi aan sameeyey aan dhahayo maaragta dee oo mar walba aan soo qaadanayo hadda aysan u jirin taasna sabab ay u tahay macnaha sida aan usii gaajoonahay oo aan rabo in wax badan kale hadda aan sii sameeyo ma fahantay marka yani haddii marka taas aan xoogaha aan dul mariyo oo aan usoo leexdo dhanka abaalmarinta waxyaabaha inta ugu badan nafsadeeda aan ku abaalmariyo waxaa kamid ah aniga geerka oo aan isticmaalo oo maaragtay markay noqoto dee film makingka inta badan markaa nafsadeeda aniga intaasaan ku abaalmariyaa oo maaragtay markii aniga aan dareemina wax cusub markii aan sameeyo ama computer ha ahaato microphone ha ahaado yani waxyaaba aan isdhihi jiray waxaas ma heli doontid oo kale ayaan soo gadaayo maaragtay dee hadday noqoto xitaa aan iska daawada waxba yaana ku sameyn marka inta ugu badan oo abaalmarinta nafteeda waxaa waaya dhanka geerka waay maasha allah nafta in la qanciyo waay maasha allah marka qanciskaas aan kasii hadlaynayo haddii adduunka lacagta adduunka lagu siiyo maanta aadan u baahnaan lahayn inaad u kacdid inaad shaqaysid si aad lacag u heshid ee lacagta adduunka haysatid maxaa camalkaada ama shaqadaadu ahaan lahaa waaw maasha allah su-aal aad iyo aad cajiib u ah horta aad ii sheeg adiga aad i weydiineysaan aad iyo aadna horta aad ugu mahadsantihiin walaa horta waa saxa wax loo shaqeeyo qof walba u soconayo inta ugu badan oo ugu muhiimsan waxa waaye lacag waaye waana tii wax kala furfuri lahayd marka aniga haddii lacag aanan u baahnayn inaan shaqeeyo keliya ay noqoto ama aan iraahde wixii markaasi anoo lacag raadinayn waxa aniga aan sameynayo noqoto dee anigoo lacaga aan arkayo ama dhinacyo badan kale lacaga ay jiraan wixii aan uga soo leexday oo ah macnaha in dhanka marka la yiraahdo wadankeena Soomaaliya ahaan dhanka sheegitaanka oo dhanka filmadana ah macnaha sheekada lagu soo gudbiyo buugaagta ma ahan sheekada lagu soo gudbiyo heesa ama ahan sheekada loo soo gudbiyo film ahaan in maaragtay dhankaasi hadda dad badan oo markaasi dadaalay way jiraan laakiin maadaama dhankaasi aan ka hooseyno dee mar walba waxa aniga aan ku dadaali lahaa in oo kor loo qaado ama aan ka shaqeeyo taas un bay ahaan lahayd waxba iska midkay bedeli lahayd Soomaali halwada sameeyay si fiican because waxaa lahaa maaragtay dee film sameeyaha waxa uu ku nafiso ma ahana lahaa inuu lacag maaragtay dee uu sameeyo laakiin waa inuu qof yani dadka fikri haysteen ama wax ay qabeen ama yani in oo sheeko ahaan intuu wax usoo bandhigo wax uu xaliyo marka maadaama aan aaminsanahay in sheekooyin badan dhul aad iyo aad u qurux badan yani waxyaabo badan oo adduunka in la tuso u baahan oo qaab filan ahaan loo tuso u baahan maadaama aan aaminsanahay inay jiraan taas ay noqon lahayd maaragtay dee wax inta ugu badan aan waqtigiis ii gelinayo su-aasha xitaa waxay tahay maxaad rabi lahayd in lagugu soo xasuusto oo markii lagaa sheekeynayo kale Cusmaan Hawsow saan u ahayo kale talahay maxaad rabi lahayd oo kale inaad adduunka aad kaga sii tagto wallaahi aniga hadda ka hor ayaa waxay ku jirtay theater aan ka qayb qaadanayo ku jirtay qof walba la dhahay macnaha dreamkaaga muxuu yahay macnaha adiga adduunka maxaa rabtaa inaad uga tagto oo kale la dhahayo marka tusaale ahaan waxaan usoo qaatay marka waxani oo maaragtay marka oo qofka habeenkii uu socdo oo kale reflectorkan oo wadada dhinacyada laga dhigo marka uusan layr jirin oo kale macnaha dad badan oo noloshooda badbaadiyay geedkaas oo kale yani farsamadaas oo kale qofkii soo hindisay oo keenay kulli aad magaciisa ma garanayo waayo dad badan oo qadka ka bixi lahaa ayagoo socdo ama si wax u hilmaansan ayuu maaragtay dee soona korontana beerdareenayn qofkii gaarigi wada layrkiis intuu ku dhaco ayuu maaragtay wuxuu u sameynayaa inuu linekii uu ku haayo meesha uusan ka bixin marka wax anigana mar walba aan dhahayna waxa waaye macnaha wax oo riyadeeda ah waxay tahay yacni wax oo qof nafsadiisa
ama dad noloshooda badbaadin karo fikir noocaas ah maaragtay markaasi inuu iga yimaado marka kolay waxyaabaha aan sameynayo ma aan raba inaan sii sameyn insha Allah qayb ay ka tahay tusaale ahaan sheeko qurux badan oo adiga qof u soo bandhigtay wuxuu maaragtay markaasi uu ka qaadan karaa dhiirigelin oo nafsadiisa uu la barbar dhigi karaa oo maaragtay taas oo markaasi wado fiican inuu ku fikiro oo noloshiisana uu horumariyana u keeni karto kolay saas aan dhihi karaa ما شاء الله wax wanaagsan waay ilaahay thank you maxaa marka gabagabadii waxaan mareynaa barnaamijka maxaa fariin dhiirigelin u reeb lahayd daawadayaashana daawanaya asxaabteena balaaran communitygan weyn ma sha Allah horta marka ugu horeysa idinkaan horta aan idin mahadcelinayaa inta maaragtay aad isku xilqaanteen in dhankiina ahaan qaabka ama dhanka aad ka socotaan oo bulshada ahaan maadaama dhan loo baahan yahay ay tahay dad oo dadka dhiirigeliyo oo dad yani dhan dhaqaale ahaan markaasi u dhiirigeliyo waxa waaye horta meel aan aad uga hooseyno waaye dhankaasi horta aad aan idinkugu hambalyeynaya waxaan idinkugu sii dhiirigelinaya maaragtay inaad sii wadaan oo hawshaasi aan maaragtay dad badan inay yani u baahan yihiin inay sii jiraan kole idinka saasa kusoo gasheen laakiin waa idinku sii dhiirigelinaya mid kale oo maaragtay guud ahaanna waxa waaye qof walbana waxaan u sheegayaa qof waliba in waxa uu isaga heesto uu aamino yani in waxa badan oo dhinacyada maaragtay markaasi uu ka arkayo oo intuu janto ama uu jeclaysto oo isdhihi karo waxaas haddii aad haysan lahayd waxaas ku samayn lahayd oo kale intuu iska daayo waxyaabaha uu isaga heesto qof waliba inuu aamino uu wax ka soo saaro taasaa maaragtay xitaa beri dambe qofkaasi marka uu guuleysto sheekadiisa qurxin karto meel qurux badan maaragtay markaasi soo istaajin karto isagana ka dhigi karto qof nafsadiisa ahaan wax u bartay marka waxaan dhihi lahaa qof waliba waxa uu haysto ama inta uu yaqaano intuu aamino waxyaabo kalena maaragtay markaasi hala siiraadiyo guuleysanaya kale taas intaas yartaan kusoo koobi lahaa ما شاء الله aad ayaa umahadsan tahay ma jirtaa wax su-aal aadna weydiinaysid ani Safiyo su-aal hadii weydiin lahaa سؤال هداي مر أن كويدية وحن ملانا لكن هذا إن مركل كسوع عليه أي تهاي لابدين مقعية على كلا بحذين أما اللي إذن يقان هذا أو اللي إذن يرادو إن تاجر يهرو مر معناها ما يعني سيكوي ما ذي الوضع سي مقع أو يعني ما قفا إذن بعيه مسألين كاسمستي سؤال fiican yes okay aniga hormaraayo horta magacayga laba siyaabo ku imaaday marna horta waxaan ugu talagalay channelka inay markay huda taajir ee arkaan oo kale dadka ay somehow ay fahmaan ina meeshan aan kaga hadlo investment self development iyo wixii qofka nafsadiisa oo ku hormari karo mid kalena yani maadaama taa aan ka hadlo YouTube kaliya ugu mahadliye nolosheeda sideeda kale iyo asxaabta iyo familkana markasta waan ku wareeriyay in investment aan ka hadlo so marka magaca taajirka dhankaas ay ka imaadeen qofka haduu horumar oo dhan taajir dhan dhaqaale uu rabo inuu sameeyo affirmation ke ka bilaabata so marka waxa daa'irada aad isticmaali kartid aaminsani kartaa is arki kartid adigoo booskaas taagan waad gaaraysaa laakiin haddii erayadiiba aaba maskaxdaada gelin karin ay kugu adag tahay dee marka waa adaabo you cut yourself short adaaba isa soo xadiday marka taas فاهم هي صفي هذه دنكيغنا ايضنا waxay waay markii aniga before YouTube horumarkan ay shirkadayda la dhahaa coaching and consulting samayso xisaabi iyo dadka ka caawiso coaching ka amal si uu horumarin lahayn noloshooda marka meeshaas magacayga raacay safi horumar waa shirkad jirto marka sidii mar ku sii wada YouTube ne horumarkii marka eray waxa way markaa shirkadda aan bilaabay aan soo qaatay iyadoo ujeedada ay ahayd horumarinta naftaada ama hada dhinaca shirkadaada hadii aad rabtid inaad horumarisid iyo hadii ay tahay nafsadaada coaching inaad ku sameeyo ma sha Allah marka cawaa labadiina qofkii aad ku arko horumar oo arkay qofkii huda arkana taajirnimo u soo carfays miya at least on the way wajidkina qofka saaran yahay muhiima ina hadeer qofka taaj isku arko okay ana marka labadiina maadaama aan wax wada sameeynay marka horumar iyo taajirnimo isla socdaan yes ما شاء الله أنا قلنا ما دعينا يا أصحابته أو نقطي إن دنكنا ما عرفت مركزية كإمادين إن ولا له هنا هدا يو ما عرفت صفية
koley waxaan rajeynayaa inaad soo dhaweyn doontaan hadduu alla idmo muuqaaladooda iyo channelkooda haddii aad booqataana adinkoona wax ka faa'iidin maaragtay inayna soo bixi doonin mar kale waan idin mahad celinayaa aad mahadsantahay aad iyo aad مع سلامة مع سلامة إن شاء الله برنامج كينا حقه كويكايس هايلونا سبسكرايب تساعتيد لايكتا إيه إنا كومنت جريسيد بموضوعي أدي عشاء إنا كجا هذا لنا فيديو كحيجة بعد ما حسنتهين مع سلامة